waa markii ugu horeysay uu dalka ka bilaabanayo tartanka cusub ee lagu magacdaray Star League ama xidigaha waxaan ka qayb galaya 6 koox ee ugu horeysa kaalmaha kala sareynta horyaalka Soomaaliya Premier League. Star League waxa way qof mutaystay ciyaarayo hadaa marka qofkii Star League loo soo xushay oo mutaystay as a club as a player as a coach aan qoweysi macnaha waxay ku dhiirigelinaysaa xiriirka inuu sii wado laakiin si xiriirka uu sii wado waa in la muujiyo Bruni macnaha ka qorxan Bruni horyaalka caadiyan xiriir kubadda cagta waxaan ka baranay tartamada kala ah horyaalka Soomaaliya Premier League koobka General Daoud horyaalka iskuulada tartanka daayirta kooxaha tartan hadda xiriirka uu abaabulay asagana tartamadu ka mid yahay waxaan rajaynayna asagana inaan ka qayb qaadano oo aan ku dadaalno sidii aan ku guuleysanay hadii Ilaahay qaab dhismeedka kooxaha iyo isku aadka waxaan ka helnay bogga xiriirka kubadda cagta dalka oo ah Somali Score wuxuu tartankan soconayaa inta u dhaxaysa 20 July ilaa 18 August sanada 2018 Star League tartanka cusub Soomaaliya waxa ka qayb qaadan doona ugu yaraan 6 koox ee ugu sareysa horyaalka waxayna noqon kartaa waxa ugu fiican ee horyaalku noqon karayo maadaama uu yahay kooxka cusub horyaalka Star League waxa filayaa in ay ka soo bixi doonaan wajiyo qurux badan kulamo qurux badan koox xifaartanka iyo loolanka kooxaha ku hordamaya koobka tartanka xidigaha waxa si wanaagsan loo diyaariyay awoodda iyo maskaxda kooxaha ka qayb galaya iyagoo qaatay tababar wanaagsan bilihii la soo dhaafay haddaba kooxda tartankan qaada imise lacag ay abaalmarin ahaan uga helaysaa xiriir kubadda cagta Soomaaliya waxaana dhignay abaalmarin $5,000 inay qaadan doonaan kooxda qaada nasiib wuxuu noqon karaa kooxda horyaalka qaada inay kana qaado waxaa la dhisay anshaxa iyo khibradda xirfadlayaasha loolamaya wuxuuna gogol xaar u noqonayaa bandhiga ay sugayaan jamaahirta u sacbinaysa kooxahooda rajada wanaagsan ka qaba ku guuleysiga Star League 2018 waa in la muujiyaa akhlaaq ka badan akhlaaqda hore waa in jaalayaasha iyo roosayaasha ay ka yaraadaan kuwii liiga marka la soo dhawbar marniyo waa inay wax badan kuwaan yaraadaan sababtoo meesha waa meel laga rabo in la soo adeeyo maxaa loo dhahay Star maxaa loo dhahay we are local stars xidigaan ka fiirinayna meeshan natiijada iyo waxa aan ma sameynayna laakiin Australia football in la ciyaaro in macalinku aqoon iyo falsafad soo bandhigo in oo lagu kala badiyo akhlaaqda iyo aqoonti in loo dulqaato guushii guuldarada guushii ku timaado sax guuldarada ku timaado sax hogaamiyaasha 6 koox ee tartankan ku xifaaltamaya laba ayaa ajnabi ah waxayna ka soo jeedaan wadanka Uganda waxayna kala yihiin Roberto Mayanji oo leeliya kooxda Hagen iyo Balanka Hussein oo isna hogaamiya kooxda Brand Sport Club rajaynayna in aan Star League sanad walba noola qabto si ay dhiirigelin ugu noqoto ciyaartoyda da'da yar shanta ugu horeysay xidiga oo maaragtay matala inaan ka mid ahay kooxda kubadda cagta Elman insha Allah kaasna waa arkayna kulli waa football kaasna kulli waa ciyaar kale koob kale oo xamaasad leh afarta kale ee isku soo hartay waa tababarayaasha xiligan ugu wanaagsan dalka kuwaas oo soo saaray xidiga badan oo tayo ku leh kooxaha kala duwan ee kubadda cagta iyo safka xulka qaranka Soomaaliya waxayna kala yihiin Cabdiwali Maxamed Cabdijoon oo hogaaminaya Horseed Cabdiraxmaan Tare oo isna leelinaya shaqada kooxda Elman Yusuf Canuriyo Cali kadib markii labadii sano ee la soo dhaafay iyo kooxdiisa u soo regaliyay ku guuleysiga horyaalka Soomaaliya Premier League waa inay ku baraarugsanaadaan tartamada soo socdana aysan isdhiganin oo dhihin 2 sano xiriir ayaa horyaal qaadeen waa inaan koobabkaas kala raadina hadii Ilaahay haddaba si aad ula jaan qaado tartanka cusub ee Soomaaliya ka bilaabanaya waxaa si fudud uga socon kartaa baraheena bulshada gaar ahaan Facebook iyo YouTube-ka adigoo heli kara muuqaalo iyo wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsan tartanka xidigaha oo ay ka qayb galayaan 6 koox oo u diiwaan gashan xiriir kubadda cagta Soomaaliya waxaan xil walba ku soo gudbinaynaa halka ay kala marayaan kooxda aad taageerayso iyo ciyaaryahanka aad doorbidayso inuu wax badan ka sameeyo tartanka Star League